ku xidhnow Baddacas24Tv. Hogaanka Garabka Dhalinyarada Xisbiga Waddani ayaa maanta si rasmi ah xilkasi isaga casilay kadib markii uu dhamaaday muddo xiloodkoodii oo ku sinaa muddo 5 sano ah waxaana ay sheegeen inay fursad siin doonaan dhalinyarta kale ee ku jirta xisbiga ee leehanka hogaamineed waxaana sidaasi warbaahinta uu xaqiijiyay gudoomiyihii hore garabka dhalinyarada xisbiga Waddani Maxamed Sidiiq Dhame isagoo ugu horeyn u mahad celiyay cid kasta oo la soo shaqeysay gaar ahaan waxa uu si gaar ah ugu mahad celiyay gudoomiyaha xisbiga Waddani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro waxaanu maanta ku dhawaaqaynaa in la gaaray muddo xileedkii xaraasha ahaa ee loo doortay xafiiska garabka dhalinyarada heer qaran waxaanu maanta ku dhawaaqaynaa maadaama aanu dhamaysanay muddo xileedkiina la doortay in xafiiska aanu u banaynayno hogaanka dhalinyarada ee cusub si aanu u jidayno sunno cusub maadaama aanu hayn hogaankii ugu horeeyay ee si dimuqraadiya intii taariikhda Somaliland ee xisbiyadu jirtay loo doorto inaanu si dimuqraadiyana xafiiska uga tagno oo aanu u banayno ayaanu ku dhawaaqaynaa waxaanu hogaaminaynay garabka dhalinyarada heer qaran 5 sanadood oo ay dhacday hal doorasho hogaamintuna waa qoriisu dhiib waxaanu soo shaqeynaynay waqti xisbigu ka soo dabaasho waayo kala duwan oo doorasho iyo tartan kala duwan hogaan ahaan waxaanu qaadanay door muhiim ah waxa aanu ka dhaxalay xisbiga iyo hogaaminta waayo aragnimo adkaysi iyo fahanka geedi socodka siyaasadda Somaliland saaxiibadii aanu shaqo wadaagta ahayn wiilal iyo gabdhabo waan bogaadinayaa gudaha iyo dibadba waxaan ugu mahad celinayaa muddo xileedkii aanu iska soo baashaqaynay ee xilkasinimadu ku dhahnayd waxaan mahad guud u jeedinayaa gudoomiyaha xisbiga Waddani oo isaguna na siiyay fursad weyn oo nagu aaminay xilka 5 sanadood geestooda waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno ka mid ah garabkii dhalinyarada ee hore xisbiga Waddani ee maanta xilka baneeyay garabkani dhalinyarada heer qaran ee xisbiga Waddani ayaa noqonaya garabkii ugu horeeyay ee si iskooda xilkaasi u baneeya kadib markii uu dhamaaday muddo xiloodkoodu si aanu xisbigana dhiig cusub iyo dheecaan cusub ugu shubno si xisbiga hayaanka iyo geediga uu ku jiro hore looga sii qaado taas weeyaan ujeedada koowaad ee aanu maanta u banaynay xafiiskii aanu muddada 5 sano soo haynay aad iyo aad waxaan uga mahad celinaynaa gudoomiyihii iyo xogayihii iyo dhamaan hogaanka xisbiga nala shaqeeyay xisbiga meelna ugama socono waxaanu nahay xubno xisbiga kamid ah qaar hogaankay ku jiraan qaar ka golaha dhexe ku jiraan waxaanu nahay dad xisbiga ka tirsan xisbigana waa la sii shaqeyn doonaa hadii Ilaahay nafteena daayo waxaan leenahay anagu xisbigii kamaanaan tagin waanu sii shaqeynaynaa laakiin waxaanu baneynaynaa kaliya tada booskii dhalinyaranimada waayo waxa muhiim ah in maalin qof cusub soo bedelo seen dalkeena uga badanay maaha kale wax hore u dhacday oo day waji cusub loo baahay in saa loo adkaa way adagtay laakiin anagu waxaan diyaarnay waji cusub inaan maanta bedelo waxaan leeyahay hablaha dhalinyarada Jamhuuriyadda Somaliland ee hanka siyaasadeed leh ku dhiirada ha ka baqanina maaha siyaasaddu dabar adag waa deebiyo jilicsan jabin kartaan waxaan leeyahay hablaha markasta iyo mar walba ku dhiirada waliba isku dayana xisbiyada mucaaradka tagtaan waayo waxaad jaranjar baad soo koraysaa adag cashar baad soo baranaysaa caqabadaha soo nolosha dhabtaaba waxay tahay inaad mucaarad soo noqoto markaas nolosha dhabta ku bilaabanta kolka waxaan leeyahay hablaha dhiirada meel walba joogtaan isku dayana hore u socotaan oo mahadsantiin وعلمي محمد عمر المرج وركة تلفزيونka Baddacas Hargeysa markasta meel kasta iyo waqti kasta Baddacas24Tv kala soco wararkii u dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan Baddacas24Tv soo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook YouTube iyo soo kale Twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo galno fadlan subscribe saar gambalaalka riix barteeda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka Baddacas24Tv waa weelka waxa aad tabayso